السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن وبرامجكي تضباطك iyo nasashada oo aalada Facebook mar walba nagala socotaan iyo barta YouTube-ga. barnaamijku waxa ii soo saaray halkan in nagala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Daawud Maxamed Argentin. sidoo kale maanta barnaamijku waxa igala qayb gali doona dhalinyaro Soomaaliyeed oo isla markaana ku dhaqan dalka Netherlands gaar ahaan caasimadda magaalada Amsterdam. وعيسى عبد الله wiliba mahad deeko oo ayaguna barnaamijka falaqeynta dhinacooda ka qaadan doonaan bal ugu horantii waxa ciyaar maalintii jimcaha ahayd ku dhaxmartay dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan gabi ahaan magaalada Amsterdam balse intaan u guda galin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo marka ugu horeysa عيسى عبد الله marka hore ku soo dhawo studio dhalinyarada iyo sidoo kale iyo barnaamijka nasashada mahadna ku xijin doona ciise marka hore أدبا ما سنتهاي أرجع دمان والسلامة برنامجك بحضة بنيرة أنا ما سنتقدوه وادماتي ما تسيدو كلا كسو دو هذينا. السلام عليكم وكدوا برنامجك مجايجنا وما ديكو وما تيك تك سيدت في يقاني وادماتي بعد وأنا سلامة يا بحضة بنيرة برنامجك صح وقرت وكاوض قادنا نيجو كمسؤولة برنامجكي أيان جود قلنا واحد عيارتين عيار حق الصلاح إسلام كان بل قابك يقول عضي يا مكوحة أنت إلى إكاين وحربا إن نقبل وعيسى بل فافهين إن جسي وترجع وحيككم ناين أبي كوحاس قول عياري عادي هذيك لوسع وحي هاد أفر كوحات كلية أو ناس كوحنا وحي هاين أو سميس أركان أو سفاح عشان كبرتان وهذا وحي كل رسيين أمستردام marka sababta loo sameeyay waxay tahay sanahan la ciyaar waxa soo socda December tournooyin oo lagu wada qabanayo maxaa la dhahaa Euro dhan kooxahan ka socdo marka sidaas awgeed anigu waxaan isku sii dhisaynaa tournooyinka soo socdo si aan ugu guuleysano koobkaas dhalinyaradan Soomaaliyeed isla Amsterdam kaliya marka koobkaas inaad ka qayb gashaan ma Amsterdam kaliya ka qayb galay mise dhalinyarada dhamaan ee Holland-kooda dhaqan waxa ka qayb galayo dhalinyarada dhamaan Europe ما هن هولن كلية معها ولا ما يوروب سيدا سويدن UK بلجيم جرماني فنلندا نرويج يا هولن مركا سنة كهر عمل ويراين كوحاكي من يوروب أو إنجليز كأبو بدنا أو حاكي من طلبة كوحكلية حقيقة يا نرويج يا سويدن ولا كهر ساعتي جرماني كوهالاي مركا سيدا سنة كان الشيء ويكبر دونا إن شاء الله مركا أنا كنوان سيدي سوينا سيان كوباس وهذا إن شاء الله وقرت كوباس حقيقي لغو قبن دونا كوبكاس waxaa lagu qaban doonaa isla Amsterdam caasimada wadanka Holland marka insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan qaadno koobkaas waa gartay mahad rabaa inaan weydiiyo asna sidoo kale su'aaltaas la mid ah mahad kooxaha ka dhisan magaalada Amsterdam ma sidii lagu ogaa Amsterdam West North Oost sidaas ma u kala dhisan yihiin mise qof waliba waxa waaye meeshii markaa uu ka soo gaaro ka mid yahay dadka ma kala go'ay yihiin kooxaha horta markii hore yani way kala go'naa jireen tiimka sida North West sida especially team North ka dhisanaa jira oo ayagana yani ilaa laba team hal team ay gaarayaan South-ka yani dad badan Soomaaliya dhalinyaro ma degna oo sida yani team u samaysan kara laakiin qaar ka degan yani dhinaca South-ka waxay South Oost-ga inta badan ishaag ay group noqdaan sidaas ay team iskaga dhigaan laakiin hadda kale waxaan soo jeedinay yani in koobka oo soo socda yani hirda ay qabanayso si aan yani uga soo bandhigno ciyaarooyin aad u wanaagsan kabacdi dhalinyaradii aadan uga kulmeynay haddana waxaa laga yani la rajeynayaa in hal team laga soo saaro waa gartay sidoo kale markaan ka gudubno xagga iyo waliba ciyaaraha magaalada Amsterdam ama gabi ahaan dalka Soomaaliya sidoo kale wiigan waxa la ciyaaray horyaalka dalka Ingiriiska ama Premier League sida qof waliba uu yaqaano Everton iyo Liverpool way wada ciyaareen Aston Villa iyo wiigan sidoo kale Manchester City iyo kooxaha dhan Manchester United Newcastle way wada ciyaareen Chelsea sidoo kale maanta ay ciyaartay Fulham way socotaa maxaa isleeyihiin qaabka markaad fiirisaan ciyaartaasi Tottenham iyo Arsenal oo caawa ama galabta saacada inaga hareen dhici doonta falanqeyntiina horta waa yani ciyaaro aad u xiiso leh sida ciyaarta aad ka dhawaajisay Arsenal iyo Tottenham oo yani hadda naadi aad sida u sii adag ahayn oo haddana yani Arsenalna hadda group cusub oo yaadiya sida Arsenal ka hor iyo tan diyaas ku qiimeysay ani waxaan ilaa game-kan yani game aan qiyaasi karin waayo laakiin waxaan rajeynayaa in Arsenal ay badinayso ciise adiga fikirkaaga waatahay horta labada kooxood horta lama dhanaysan karo oo way adag yihiin siiba aan dhahe Tottenham hadda Arsenal si saas uma adka oo waxa ka maqan ciyaaryahan aad muhiim u ahaa oo ka wada tagay
marka ani ahaan ma taageero Tottenham laakiin waxa uu rajaa inay Tottenham ay ka badiso Arsenal sidoo kale haddaad soo gabagabaysaan isla markaan aad raacsataan kooxaha AC Milan iyo Juventus ayaa caawa ku wada ballansan Serie-da fikirkaaga Ciise waa tahay horta labada kooxood horta waa laba koox oo aad iyo aad ugu adag Serie-da marka horta aniga labadooda kooxood ma taageero laakiin waxaan u maleynayaa inay badinayso AC Milan waxa waaye odayaal baa jooga aad u khibrad badan marka waxaan leeyahay khibrad baa lagu dili doonaa Juventus mahad sidoo kale adiga nafsad ahaantaada Juventus iyo kooxda AC Milan maxay ku dhamaan doontaa isleeda ciyaarta horta gamekaas waa game aad derby u ah ee adag fadhiya fiirsada Juventus oo hadda naadi aad amoodo inay yani dhinac isfaankooda oo yani aad u wanaagsan yahay kadib markii ay la soo wareegeen ciyaarayaankii qadka dhexe ee Pirlo waxaana yani aan yani u rajaynayaa inuu Pirlo ciyaar aad wanaagsan oo meeshaas ka soo bandhigi doono AC Milan tusi doono inuu yani weli ay wax ku dambeeyaan oo kooxdiisii hore oo kaga hortagi doona isleedahay sida aad yahay waa dhamaatay barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaan ila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Argentin waxay kala qayb galay Ciise Cabdullaahi iyo waliba Mahad Deko waa barnaamijkii nasashada dhammaan dhalinyarada oo isku wada duuban oo iskaga tagay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh